guddida qandaraasyada Somaliland ayaa maanta munaasabad ay ku daahfuraysay tartan 5 mashruuc oo waaweyn oo ay xukuumaddu ka filinayso deegaanada kala duwan ee dalka ku qabatay hoolka dowladda hoose magaalada Berbera waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo badiba shirkadaha ka jira dalka Somaliland oo tartan halkaasi uu ku dhexmarayay ugu horeyna waxa isagoo halkaasi ka hadlay gudoomiyaha qandaraasyada qaranka Somaliland Jamaal Maxamed Xuseen markaana soo dhaweeyay tartankan ay ku dheehan tahay cadaaladdu bada saabka gobolka Saaxil iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland waxaana kamid ah hadalladoodii والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها قبل كساحل ضمان شركتها وترتمى شنطة مشروع أقاسمها جود هرمرنتها بيها وسعرة هرمرنتها بيها جود دا قندراسية دا صحافة دا وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آدي أدوكم هاد علنا يا ماملك قبل كساحل oo si sharaf leh noo soo dhaweeyay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin iyo ka degmadaba runtii waxa maanta farxad noo ah in guddiga qandaraasyadu ay gobolka Saaxil ku qabtaan qandaraas heer qarana oo dhammaanba gobolada dalka ugu yaraan 3 gobol ka kooban waana horumarin laga yaabo berritana in lagu qabto maxaan ku radaa Laascaanood ama maalinta dambana lagu qabto Boorame oo aanay Hargeysa u nahay tallaabadaasi aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa inaad maalinba gobol qandaraaskeeda ku qabataan ku soo dhawaada gobolkii Saaxil waan idinku soo dhaweynaynaa guddiga qandaraasyada iyo hawshiisa iyo xubnaha kale maxaan ku tartamaya bidhkanba dhammaantiin ku soo dhawaada waxaan idin leenahay qandaraaslayaashana dhammaantiina guul baa idin rajaynaynaa inaad wada guulaysataan dhammaantiinba كله واحد لقوا ترتبي كوبيه لكن وذا قوليستا والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها قبل كساحل ضمان شركتها وترتمى شنطة مشروع أقاسمها جود هرمرنتها بيها وسعرة هرمرنتها بيها جود دا قندراسية دا صحافة دا وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka gobolka Saaxil oo si sharaf leh noo soo dhaweeyay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin iyo ka degmadaba waxaan mar labaad aan u mahad celinayaa barasaabka gobolka Saaxil farxad weyn bay tahay inaan maanta halkan goobjoog ka noqdo furitaanka qandaraaska biyaha oo waliba dhaamamka iyo qodaalka ceelasha runtii waa wixii dadka xisbiga u ballan qaaday oo fulinay waa ballanqaadkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ummadda u qaadan markay tartamayeen oo hirgalay waa hogaamintii wasiirka wasaaradda oo hirgashay waa dadaalkii maxaan ku radaa madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddu ayaan maanta arkayna halkan hirgal ka tahay waa guul qaran sidaa u soo socotana runtii aad baan soo dhaweynayaa intaasi kadib waxa iyagu dareenkooda cabiray qaar ka mid ah shirkadihii ka qayb qaadanaya tartankaasi lagu hirgelinayo mashaariicda shanta ka kooban بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما waxaan maanta joognaa gobolka Saaxil anagoo ah kontraktaradii Somaliland badankoodii oo aad u tiro badan taasoo aan ku tartamayno mashaariicdii ay soo deysay jamhuuriyadda Somaliland oo si fiican oo cadaalada muddaba u socotay u wadeen runtii kambaniyo badan ah bidhkan shanta project ama shanta mashruuc ka kooban runtii sida aad wada arkaysaan ama aad kulli shaashadaha ka arkaysaan wax walba runtii si fiican bay u socdeen wax walba si cadaan ah la iskugu sheegayay wax kasta waxa la sameynayay in ay qof walba uu arko qofka su'aal ka qaldanto runtii waa loo saxayay oo la maxaa waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suur Goobjoog TV Berbera